waxaynu noolnahay qarnigii hal abuurka ganacsiga oo ay hareeyeen shirkado cusub oo si xawli ah ku socda kuwa oo bedelay hababkii hore ee ganacsiga. waxaa sanadba sanadka ka dambaysa isbedelaya farsamooyinka casriga ah kuwa oo saameyn ku yeeshay ganacsigii kaasoo isaguna ku yimid isbedel la jaan qaadaya farsamooyinkan casriga ah. sida caadiga ah dadka alifa ganacsiyada indhahooda kor ayay eegaan waxayna isku dayaan inay aqoonsadaan fursadaha. ganacsi abuurayaasha ugu wanaagsan waa kuwa adeegsada waxyaalaha ay ka fahmeen guulihii iyo guuldarrooyinkii hore kadibna isku daya inay wax ka bartaan kuwii ayaga ka horreeyay ee isku dayay inay la yimaadaan hal abuur ganacsi. haddaan si fudud u dhahno ganacsi alifaha ama asaasaha waa qofka arka fursadda kadibna ka jawaab celiya si uu ugu bedelo ganacsi guulaysta. buuggan wuxuu kugu caawin doonaa inaad noqoto qof fursadaha ku hareeraysan arka kadibna uga faa'iidaysta inuu u bedelo ganacsi guulaysta. buuggan waxaa qoray Daniel Britley oo ah ganacsi alife hal abuurkiisu hergelay kaasoo ganacsigiisa ka yagaleelay dalalka Australia, Singapore iyo Ingiriiska. waa aasaasaha shirkadda weyn ee bixisa tababarada la xiriira hogaaminta iyo horumarinta shirkadaha. sidoo kale waa qoraa soo saara buugaag kala duwan kuwa oo la xiriira horumarinta ganacsiyada yaryar si gaar ah ganacsiyada abuurka ah. cutubka koowaad ee buuggan aan soo koobi doono ee Entrepreneurial Revolution ama kacdoonka ganacsiyada alifka ah ayuu qoraagu uga hadlay in kacdoonka ganacsiga alifka ama abuurka ah uu hadda bilowday. qoraaga ayaa sheegay in wax kasta ay isbedeli doonaan sanadaha nagu soo fool leh isagoo xusay in habka shaqada, nolosha, dhaqaalaha ay dhammaan noqon doonaan kuwa isbedela. waxa uu tusaale usoo qaatay sida ay dunidu isu bedelayso marba marka ka dambaysa xilligii tabaca beeraha in beeruhu ay ka shaqayn jireen dad aad u badan balse marba marka ka dambayso ay dunidu ku tallaabsanayso horumar ilaa laga gaaro in shaqo ay qaban lahaayeen in ka badan 100 qof ay qabato hal cagaf-cagaf. hal abuurka ganacsiga iyo farsamooyinka casriga ah marba marka ka dambaysa waxay noqonayeen kuwo laga sii fududeeyo sidii hore taasoo mar walba fursad u abuuraysa ganacsi alifayaasha cusub sidoo kalena meesha ka saaraysay ganacsiyo waaweyn oo hore u jiri jiray. qoraaga ayaa sheegay in farsamooyinka casriga ay suuro geliyeen in ganacsiyo yaryar ay helaan suuqyo caalami ah awoodna u helaan inay ganacsi la samaystaan warshado samaystaan astaan noqdaana kuwa la heli karo 24 saac toddobaadkii. ganacsiyada yaryar ayuu xusay inay maanta awoodaan inay sameeyaan dhammaan waxyaalaha ay qabtaan ganacsiyada waaweyn waliba ay awoodi karaan wax ka badan waxa ay qabtaan shirkadahaas waaweyn. ganacsatada yaryar waxay hayaan niyad, waxay leeyihiin koox dad ah oo aad u daneeya, waxay yaqaanaan macaamiishooda, waxay jecel yihiin waxa ay qabanayaan, degdeg ayay uga jawaab celiyaan dalabyada, inta badan ma lahan waqti ay xiran yihiin, goobtooda shaqadana waa meel uu qof walba ka helo farxad, xorna u yahay shaqada uu qabanayo. aan dhabta usoo daadegno xaggee jeclaan lahayd inaad ka shaqayso? ma waxaad jeclaan lahayd inaad ka shaqayso shirkad aan kugu aragti ahayn taasoo waxa keliya ay danaynayso ay tahay lacagta ay faa'iido adigana kula dhaqmaysa sida inaad tahay lambar? mise waxaad jeclaan lahayd inaad qayb ka noqoto koox yar oo firfircoon, hal abuur leh, kuwaasoo ka shaqaynaya buuxinta meelaha ay baahiyaha ka jiraan kuna faraxsan? qoraaga oo qeexaya ganacsi alifaha ayaa yidhi ganacsi alifuhu ma ahan aasaase ganacsi, aasaasayaashu waxay helaan ammaan xad dhaaf ah. ganacsi alifuhu waa qof suuro geliya inay dhacaan waxyaalo qiimo leh kaasoo qaata mas-uuliyadda guulihiisa iyo guuldarradiisa. arrintaa oo macnaheedu yahay in kooxaha ganacsi alifayaasha ugu bandhiga sarreeya ay jiri karaan maxaa yeelay ganacsi abuurka waa mid ay wadaagaan hogaamiyeyaasha, maamulayaasha iyo xubnaha kale ee kooxda balse ma ahan mid u gaara aasaasaha ganacsiga. ujeedkaagu ka ganacsi alifa ahaan waa inaad abuurtaa qiimo si aad u qabato shaqo macno leh si hoosena u danayso waxa aad ku lug leedahay. ma jeclaan lahayd inaad u shaqayso shirkad oranaysa ma ku bixin karno dhaqaalaha saamileyda mashaariicda dadweynaha, lacagna kuma khasaarin karno inaan iibsanno agabyada cusub ee lasoo saaro? mise waxaad jeclaan lahayd inaad u shaqayso shirkad oranaysa waan danaynaa? qoraaga ayaa cutubkan uga hadlay ganacsiyada yaryar ee caalamiga ah ee magacooda loo soo gaabiyo GSB Global Small Business. waxa uu xusay in ganacsiga noocan ah uu fududeeyay inuu isaga gudbo qaarado iyadoo dadka ka shaqaynaya ay suuragal tahay inay kala joogaan dalal aad u kala fog balse ku xiriira aaladaha la isugu gudbiyo fariimaha degdeg ah. ganacsigan dijitaalka ayuu sheegay inuu maanta yahay mid ganacsi alifaha fursad u siinaya inuu safar ku maro dalal badan oo caalamka ah kuna shaqaysto isaga oo gurigiisa jooga, gaarigiisa saaran ama goobtiisa shaqo, dhaqaale aad u badanna ka samayn karo. qoraaga ayaa yidhi marka aan eego hareerahayga waxaan arkaa dad ku nool hab nololeed aan wax macnaa ii samaynayn,
waxaan arkaa dad khasaarinaya qaybta ugu muhiimsan maalintooda si ay awood u geliyaan aragti aan iyaga farxad gelinayn iyo lacago yar oo ay ku dabaraan noloshooda. Waxaan arkaa dad la ciirciiraya deymo lagu leeyahay, kuwa oo xadida go'aan walba oo ay sameeyaan. Dad ku nool magaalooyinkii ay ku dhasheen kuna barbaareen balse aan weligood meelo kale eegin. Waxaan ogaaday dad leh asxaab aysan xushmad badan u hayn kuna faraxsanayn balse kula saaxiibo keliya inay weligood asxaab ahaan jireen. qaybtan ayuu uga hadlay in ay muhiim tahay in qofka haddii uu rabo inuu noqdo ganacsi alifo guuleysta inay muhiim tahay inuu ka dhex baxo halka uu farxadda ku dareemayo, diyaarna u noqdo inuu wajaho caqabado. Maxaa yeelay nafteennu walwal ayay dareentaa marka aan doonayno inaan isbeddel sameyno. Waxay nagu dhiirigelisaa inaan sii joogno halkii aan farxadda ku dareemaynay, halkaa oo haddii aad bannaanka uga bixi lahayd ee suuragal tahay inaad sameyn lahayd isbeddel noloshaada saameyn wanaagsan ku yeesha. Qoraaga ayaa sheegay in haddii aad tahay ganacsi abuure, in la joogo waqtigaagii oo aysan taariikhda jirin waqti kaga habboon xilligan in ganacsi la bilaabo lana horumariyo, kaasoo wax wanaagsan kusoo kordhiya goobaha shaqada, isbeddel wanaagsanna ku keena caalamka. Kacdoonka ganacsiyada abuurka ah waa uu dhacayaa, mana jirto cid joojin karta, ayuu yidhi. Buuggan wuxuu kugu caawin doonaa in aad ka dhex baxdo habkii hore ee laga gudbay ugana baxdo habka cusub. Waxaa loogu talagalay inuu ku tuso waxyaalaha soo socda si aad u aragto mustaqbalka ugana faa'iidaysato. Waa in aan kicinnaa qaybta nolosheenna ka midka ah ee diyaar ku ah inaan isbeddel sameyno, taasoo jecel inay wajahdo caqabadaha, qaadatana mas'uuliyadaha. Waa in aan hakinnaa ku qanacsanaanta inaan sii ahaano shaqaale shirkad ama warshad oo aan alifnaa ganacsi. Intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa qaybtan koowaad. qaybo kale ayaan hadduu Rabbi qadaro idiin soo gudbin doonaa. Magacaygu waa Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.